الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo mas'alo hadda ka horna aan xoogaa ka sheegay buuqeeduna uu suuqa ku batay. waxaan dhageystay wadaado tiro badan oo Soomaali ah oo mawduuca forex ka hadlaya. waxay isugu jireen rag diidan oo taxriiminaya ama xarimaya isticmaalka forex iyo rag ogolaanaya oo banaynaya. waxaan akhriyay dhowr kitaab oo mawduucaas laga qoray. waxaa ka mid ah kitaab yar oo risaalo yar oo internetka ku jirto aad wada raadsan kartaan oo uu qoray doctor maxamed cali alqari oo ustaadka ah jaamacadda sacuudiga ee qeybta iqtisaadiga ama dhaqaalaha. ninkaas si fiican buu uga hadlay. wuxuu si cadaaladi ku jirto usoo guuriyey masalada waxyaabaha laysku haysto oo ka mid ah forexka. marka ugu horeysa waxaa u baahan in la sheego masale muhiim ah. kow, masaladu waa masalo khilaafiya. masaladu marka hadday khilaafi tahay oo culimadu isku khilaafsan tahay, qolo walba xaq bay u leedahay inay madhabkeeda iyo meesha ay iyadu ku qanacsan tahay ay faafiso. xaq bay u leedahay. qolona qolo ma eedayn karto, qolona qolo ma caayi karto. khilaafkana aniga say ila tahay saan marar badan sheegay, waxyaabuhu markay cusub yihiin oo ay caalamka ku cusub yihiin ama cilmi cusub uu yahay, wuxuu dadku waa ku wareeraa. 2000kii bilihii ugu horreeyey ayaan anigu waxaan lahaa account stock trading ah. waa 2000kii 19 sano ka hor. company aan u shaqayn jiray oo Maraykanka maraan joogay aan ka shaqayn jiray oo IT-ga ahaa ayaa wuxuu dadka siin jiray stocks. qofka shaqaalaha ah marka ugu horeysaba stocks baa la siin jiray, sanad kastana wuxuu gayn jiray stock fara badan. qofka marka forexku waa cusub yahay, waa dhuxu soo baxay ilaa dhowr iyo 10 sano jira hadduu ugu bato. laakiin stock waa ka horreeyey. markaan wadaadada dhageystay, rag badan oo wadaadada ka mid ah mawduuca wax badan kama yaqaanin. waxaana laga yaabaa inay ictimaadaan aqoon qof kale uu leeyahay oo ay waraystaan oo uu u sheego. marka waxaan ku talin lahaa bal wadaadada horta inay akoonna ka furtaan forex oo iyagu ay tijaabiyaan si ay u ogaadaan mas'aladan meesha taalla bal waxa ay tahay, kadibna ay markaa uga soo saaraan xukun sharciya. masalada waa ku talin lahaa wadaadadu inay tijaabiyaan oo ay bartaan. maxaa yeelay waxyaabo badan oo ay wadaadadu ku doodayaan, ama muslimka guud ha ahaadeen ama soomaalida ha ahaadeen, iyo xaqiiqada meesha ka jirtaa way kala fog yihiin. saan caddayn doono video shalay baan dhageystay masaajid xamar ku yaala ka soo baxay. 3 nin baa ka hadlay. nin arrin khaarij almawduuca buu ka hadlayey, danka malihi maadaama uusan forex ka hadlayn. ninna wuxuu sharaxayay ijraa'aadka forexku suu u dhaco. ninkaasina wax badan buu isku khalday. sida xaqiiqada ah iyo sida waxa uu sheegay waa kala fog yihiin. ninna min jihati sharci muntaqadaadka ama makhaawifta ku jirta masalada forexka ama masaa'ilka lagu haysto oo isaga ula muuqatay in lagu haysto masaladan ah forexka oo lagu xarimo ayuu ka hadlay. wuxuuna kusoo ururiyey 4 shay. midaasa waxay u baahan tahay marka in waxuun laga yiraahdo. midda koowaad, wadaadku wuxuu yiri waxaa jirta ribal qardi baa ku jirta. oo ribo ayaa waxaa ku jirta deynka qofka la siinayo. qofka lacag baa la siinayaa, lacagtaasi waa deyn. kow, deynkaa la siinaya riba saaran buu yiri. ribada saaran maxay tahay? qofka ku siinaya oo simsaarka ah ama
agencyga ama meesha aad ka furanaysid kambaniga aad ka furanaysid oo wasiidka ah oo ama dulaal ku magacow ama waxaa ku magacowdaa waxaa rabtid ku magacow wasiid qof idiin dhexeeya adiga iyo qofka kale wax kala gadan idiin dhexeeya oo aad akoonka ka furanaysid qofkaas iyo adiga qofka idiin dhexeeya oo kuu furaya akoonka lacagtana ku siinaya aad ku ganacsanaysid lacag kaa qaadanaya lacagta uu kaa qaadanayo waa faa'iido qardigaana keenay iyo deynka arrintaasi sax maaha waxaysan sax ku ahayn wadaadka waxaa isaga khaldan waxaa la yidhahda ijaarka iyo waxaa isaga khaldan waxaa la yidhaahdo faa'iidada ribxigu waa wax la faa'iido lacagtu faa'iido ijaarkuna waa shaqo laysu qabto iyo service laysa siiyo camal laysu qabto ama shaqo laysu qabto wuxuun service ama khidmad baa lagu qabtay ama waxbaa lagu siiyey ficil ah ficilkaasaa lagaa kireystay oo lacag lagaaga qaaday arrintaa iyada ah ayuu ma garanaysaa wadaadku isdhexgeliyey mar buu weliba intuu sheegay oo wuxuu yidhi qaar baa waxay leeyihin waa ijaar buu haddana tuuray oo bannaanka u saaray kitaabka aan rabo inaan aada u ictimaado 3 mas'alo ayuu tilmaamayaa inuu khilaaf ka taagan yahay 3 mas'alo masalada koowaad wuxuu yidhi baycun wa salaf wadaadkan qaradka ku xukumay inuu dayn faa'iido keenaya yahay jara manfacatanna sidaasuu wax ku dhisay marka waxaan akhriyayaa bal culimmadu waxay ka yidhaahdeen masalada ah kullu qardin jara manfacatan fahuwa riban هذه المسألة ليست على إطلاقها صحيحة مسألة مسألة إسكفرا وقف والبلغو أبلاي قرين كرمها وحان أركي دونا علماء وكهد ليس وحيري صدح مسألة بقى ليسكو خلاف اختلف الناس في حكم تجارة الهامش هذه فمنهم من قال فيها بالجواز ومنهم من قال فيها بالمنع وسبب الاختلاف في الرأي هو اختلاف حول جملة مسائل مسائشها مسألة كواد وحوي بيع وسلف وحير القرض جزء أساس من نظام تجارة الهامش مسألة هرتا أبهن إلا يسكو وافقه هرتا ماشي الدين مية هلا مثل مية هلو مسألة إلا يسكو وافقه أبهن تاي waxa la yiraahdaa marginka oo 1 to 100 iyo 1 to 200 1 to 1000 baa jirta hadda kuwa ugu badan hadda waxay bixiyaan waa 1000 hadda $1,000 dhigatid 1000 jeer baa lagu laabaya milyan baa ku ganacsan kartaa numberkaas isaga oo lagu siinaya baa margin la yiraahdaa marginka isaga oo lagu siiyay oo 1 to 1000 ka ah oo lagu leeyahay ku ganacso khasab ma horta inaad ku ganacsatid you don't have to broker ku lacagta uu ku siinayo ku offer gareynayo ability-ga uu ku siinayo الرافعة la yiraahdo khasab ma inaad ku ganacsatid $20 baa ku ganacsan kartaa 1000 baa ku ganacsan kartaa 100 baa ku ganacsan kartaa waxa aad gadanaysid inta ka gadanaysid aday kugu xiran tahay $10 baa gadan kartaa oo suugi kartaa intay qaaliyowdo waxa la gadanayaana waa points weeye ma aha $100 oo weynaa ma gadanaysid soo ma arkaysid sidaas oo kale mas'alada ah ma dayn baa mise dayn ma waa khilaaf balse aan kaba soo qaadnay inay dayn tahay lagu siiyey maxay tahay faa'iidada saaran oo soo raacaysa koo waxay yiraahdeen manfaacada uu soo jiidayo waxa weeye inaadan lacagta inta qaadatid meel kale iskala aadi karin oo maxaa u qaadanaysaa oo meel kale ula aadaysaa waxaaba lagu siinayaa servicekii aad u baahnayd ka ula tagtidna intoo kale uu kaa qaadaya marka maadaama ajrul mithli uu kaa qaadayo oo suuqa wax ka duwan uusan isagu kaa qaadayn arrintaa maxay diinta islaamka ku qabtaa salaf wa bayc kiradaas iyo ijaarkaas iyo khidmad haddii lagu sameeyo maxay culimmadu ka qabtaa oo ay ka yiraahdeen daa'ifada yiri ma banaana waxa ay daliishadeen waxay dhaheen lianna aljamca bayna alqardi wa cuquud almucaawadaat mamnuucun xadiidkaas ay daliishadeen uu wadaadku soo qaatay oo wuxuu yiri baycun wa salaf baa nabigu nahiyey sallallahu alayhi wasallam رواية عبد الله بن عمر بوسوقات لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن أو ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك أفر شيء أي نبي قلنا هي صلى الله عليه وسلم بيع يا سلف العقنا قادة الدينة حدنا عاد بيع إذا نحمر رقفك على عقتك قادتي ومسألة سنة اللبات أو لما نعيه وحيتهاي وحو النبي قد صلى الله عليه وسلم أو قضب كلابادا ولا شرطان في بيع بيع قديس إني لما شرط كجيران
oo iska hor imaanayo aan laba shardi oo aan shuqul isku lahayn hadday yihiin oo kala dambeeya waa meeshada laba shardi oo isku xiran hadday yihiin oo midkaan oo aan weli dhammaan shardi kalena jiro ma lama ogola waxaan kaloo la ogolayn oo qodobka saddexaad walaa bayca walaa ribxa fima lam yadman wax uusan weli gacanta ku dhigin waa masalada masaa'ilka saddexda ka mid ah oo aan u tegi doono ama afarta wadaadka uu ishaaray ka mid ah oo aan u tegi doono iyadana oo ah qabdiga wixii uusan damaano qaadin oo gacantiisa soo gelinna kama faa'iidi karo walaa bayca maa laysa cindak wax aadan haysanna ma gedi kartid oo aadan lahayn iyaduna mulkigay ka hadlaysaa wuxuu yidhi sheikhu ama iqraadu shirkati lilcamiili fahuwa waadixun masalada ah shirkadda iyo camiilka wax ka dhexeeya waa waadix buu yidhi masalada ka hadli mayno waxaan ka hadlaynaa waxa kan deynba inay tahay kaba soo qaad sababta majaamicda fiqiga qaar ka mid ah ayaa ku tilmaamay inay qard tahay saas oo kale waqad callala alfuqahaau manca aljamci bayna albayci wasalafi ana ziyadata fi lqard wahiya mamnuucatun rubama tastatiru fi ziyadatin fi thaman albayc falaa tadharu murtabitatan bilqard waxaa dhici karta in lacag lagugu hoos qariyo faa'iida ah isla markaasna aysan ka muuqan lacagtii deynkaadoo lagu siiyey aysan ka muuqan wa inamaa tarbutu bithamani albayc lacagtii beyca oo aad gaday meeshan ay ka leeyihin transaction fee mar kastoo aad trade samaysid oo aad wax soo gadatid fee baa lagaa qaadaya mar kastoo aad iska sii gadinna fee baa lagaa qaadaya yaa kaa qaadaya brokerka kaa qaadaya qofka simsaarka ah ama agensigan wasiidka ah oo idiin dhexeeyo dulaalka ah baa qaadanaya lacagtaas muxuu ku qaadanayaa wuxuu ku siiyey awoodda aad wax ku kala ganacsanaysaan adiga iyo qof kale oo adduunka meeshuu doono ka jooga awooddaasi maxay tahay waa technologiga casriga masalada aan rabo oo labaad inaan ishaaro aan ilaaway bilowgii inaan ishaaro waxa weeye masaladani waxay ka mid tahay min mustajadaat alfiqh ama fiqhu nawaasil masaa'ilka cusub bay ka mid tahay masaa'il aan jiri jirin oo kutubta aan ku qornayn bay ka mid tahay maxaa yeelay kutubta internet iyo ganacsigiis iyo laba qof aan isu jeedin inay wax kala gadan karaan iyo siday wax u dhex marayaan iyo ijraa'aadka la marayo iyo curfiga iyo caadaadka wax lagu dhisayo horey uma jirin hadday bilaabatay maadaama ay marka hadda wax bilaabatay tahay waa masalo cusub ijtihaad iyo fiqi bayna u khuduucdaa culimaduna xaq bay u leeyihin inay ku ijtihaadaan masalada marka iyada ah wuxuu yidhi waxaa dhici karta in beyca lagu dhex qariyo maxay daliishadeen ibnu taymiya raxmatullahi caleyh baa wuxuu yidhi xarama nabiyu ljamca bayna asalafi waalbeyc ilaahay wuxuu xarimay nabigiisu beyc iyo in laysku dhex daro deyn la kala qaato oo qofkii deynka ah ka qaadatay uu rabo inaad wax ka gadatid saa darteed uu deynka kuu siiyey liannahu idaa aqradahu wa baacahu xaabaah haddii uu ka iibsado buu yidhi markuu deynka siiyey kadib hadduu wax kaga iibsado wuu dhaqaalaystayoo wuu sasabtayoo wuu jeclaystayoo ninkiibuu waa dumay macnaha waa rikruud gareeyey inuu deynka siinayo waxaa keenay sababta deynka loo siiyey lacagtaas uu ka iibsan doono wax kaga iibsan doono xabaahu fi lbeyci liajli alqard qardigii uu siiyey oo deynkaa darteed buu wax kaga iibsaday oo ku jeclaaday wuxuu kaloo yidhi fa ina man aqrada rajulan 1000 dirhamin qofkii 1000 dirham qof siiya wa baacahu silcatan tusaawi 500 bi1000 oo markaa badeecad isagu uu haysto oo joogtay 500 uu $1000 ka siisto 500 bay joogtay 1000 buu ka siistay waa u kordhiyey laban laab buu ugu dhuftay qofka isaga ahi wuxuu yidhi lam yarda biliqraadi ila bithamani zaa'idi lisilca kan deynka baxshay deynkaa ma baxsheen ilaa inuu og yahay inuu faa'iidadan ka helaya mooye walmushtari lam yarda bibadli dalika athamani zaa'id ila liajli 1000 qofkan deynka inta la siiyey shay 500 joogay 1000 ka siistay waxaas raalli kama noqdeen haddaan deynkaanu jirin oo qofkaan inta u timaadid shaygaan meeqaa gadaa 500 baan gadaa 1000 baan kaa siinaya iskama dhahaysa haddaan wax idinka dhaxayn waxa idinka dhexeeyo aad ninkan ku dhaqaalaysatay muxuu yahay deyn buu ku siiyey marka wuxuu kugu leeyahay gacan buu kugu leeyahay waa qof gacan kugu le wax ku taray af wax cunay xishoobaa tahay isagana marka inaad u abaal guddaan rabtaa waa u kordhinaysaa lacagtii waa u kordhisay markaas wuxuu yidhi falaa haadaa baaca baycan bi1000 kanuna deyn kan wax iibsaday oo shayga 500 joogay 1000 kala baxay wax ma gadan oo shay 1000 jooga ma gadan walaa haadaa aqrada qardan maxdan kanuna deyn madax bannaan ma uusan bixine deyn uu wax ka faa'iiday buu bixiyey marka deyn uu hoos geliyey ma garanaysaa uu hoos geliyey beec buu ninkaanuna bixiyey
وحو كلو يري الشيخ ورب قائل ليست هذه من البيع وإنما هي سمسرة والسمسرة إجارة لا بيع قولada diidan baa hadalka shiikhan aan sheegayo xamar ka hadlay uu daliishaday oo commissionkii uu ku sheegay ijaarka ahayd uu yiri ma aha commission hadalkan uu daliishaday ay wadaadadaan halkan ku soo qoreen warubama inuu halkan ka akhriyay masaa'ilka uu ka hadlayo oo maxaa yeelay intuba halkan ku jiraan waana inta shay oo khilaafku ku jiro masalada ku saabsan wuxuu yiri rubba qaa'ilin laysat hadhihi min al-bay' arintaana bay' ba maaha inuu yiraahdo laga yaabo qof maxaa yeelay waa samsara oo waa commission marka wuxuu yiri jawaabtan siinayna waxay tahay waa kuwii diidanaa culimadii diidanayd way ما ذكره في شرح منتهى الإرادات وحكو شيء كبير فإذا جمع بين سلف وإجارة فهو جمع بين سلف وبيع ننكي اسكو دره انتو قف دين سيو هادانا وحكا كريسته او شقا كسميسته او يسوي أجر كقاته قف كاسي دين كليه ما بحينه ودين إيا بيع وي دين إيو إيب اسكو دحجر وي ما كلا دوانو ليه فلم تختلف لبداس اسمه خلاف سنة لكن وحارة دين دونه قولada kale maxay ku jawaabeen qolada arinta ka jawaabay deynkan lacagta laga qaadaya xarimaysa oo riba ka dhigaysa culimada diiday inay arintaas riba tahay maxay kaga jawaabeen saanay kaga jawaabeen laysa kullu jam'in bayna bay'in wa salafin mamnu' sanadaaya sheegay bay' kasta oo soo jiida deyn kasto soo jiida bay' iyo ganacsi inuu idin dhex maro qofkii deynka ku siiyay xaraan ma ala itlaqi wa xaraan ma محايا لي ذلك لأن النهي عن بيع وسلف له علة ظاهرة علة ظاهرة كتيرته أو موقته أو أيدي كرتين يسميشان كتيرين أنا هالكاس أيس كتيرين تاسنا كتيرته مركب وحكة ستو بيعه أو صادح قال السلف حرام وين اللي يرادو صح ما هبي صح ما ويري علة كتيرته محايا وهي صدر الزيادة في القرض قرض كي أو لقو قريه زيادة دين كي أو لقو ده قريه زيادة ديرادة وهي ممنوعة وأنا ممنوع أرنتاسي أيضا مركا لقود ضمان قاضي الربح في البيع ضمن الربح في البيع وهو جائز بيع إن فائدة لجهل وجائز دينك إن فائدة لجهل وهو ممنوع لبدا سو ليسدح جليه بين قنا يسابيري شغلنا اسكما لها إن ليسدح جليه لما أقوله من هو ربا من هو فائدة وأحل الله البيع وحرم الربا تنوى ممنوع وربا تنا إلهي ببنيه أو بيع إن فائدة لجهر إلهي ببنيه حدنا مرها أو قفكو شيء دولار كبيحيه بقولالكم سيسن كرا مليون بوسين كرا فإذا خلت المعاملة من ذلك أدي معاملة دي لبداس اللي يسدح جليه كم مرنتهاي فالجمع بين البيع والسلف لا محظور فيه بيعي أو مركز دينكي أو بيع لقود يحضره مشكلة ماله هدي اللي جمرين هاي إن فائدة إلا يسكون حقارين أيوه ليسوا ولاقي سيدي ننكي هداي وشيخ ابن تيمية كاد لاي ابن تيمية نفسه باكاد لدور مسألة ويري فلو كان البيع على سبيل المثال شيخ أنا ولوته شيخ دكتور محمد علي القري ويري هدي بيع على سبيل المثال تصالحان وعلماء كجوابتي أرنتي أهيد وحبا يسكون حجراء دين إيو واحد يسكون حجراء إيو الربو ويري بثمن يتحدد في السوق قف كان وحا لغا قادة العقد معروفة أو اللي يقانو سوقا أو دن كجرته هذا بروكر كانوا تكتد ميقو قاربا وحي قادان $5 هالكي ترانساكشن قاربا وحي قادان $2 قاربا سعر السوق إن اسكو دو بي قادان واد فيرينيسا ادو markaad shopping sameynayso qolada kuugu sahlan oo aad raadsanaysid waa qolada kuugu faa'iido badnaan doonta oo ku ogolaan doonta waxa aad sameynaysid in lacagta ugu yar ay kaaga qaataan suuqoodina isticmaalaysid كو wuxuu yiri hadii suuq la yadda lidaain fihi qofka deynka bixinaya uusan isagu sicirka goynin ee sicirku uu yahay sicirka suuqa yajuzu lahu an yajma'a bayna al-bay' wa salaf li-intifaa'i 'illati al-man'i maxaa yeelay cilladii la manciyay baa waxay ahayd deynku inuu sababayo faa'iidadan oo deynku markuu sababay haddana uu ninkii daa'inka ahaa uu isagu xadidayo lacagta la kala qaadanayo يشهد لذلك ما ذكره ابن تيمية في الفتاوى جزء صدن سجال الواتنات صفحة شنبقولي صدن يشن وحكو شيء إذا أكراه بقيمة المثل هدو قري ككريين أما الدكان وككريو مال قيمها وككريو قيمه عادي قاعدتك السوق سعر سوق وياي وأقرضه القوة ومركا وديمي وديسة حق بسي وحككري قارك عنه وألابتي كسو دابشو
فوق ليفتي قاري ويسقوا لي هاي وعلابته كسر ررته يحسي معناها قوتي وعلابته كسر أما يسقى بلاش شقيه حمال بوكان نقضي علابتي والله صار ريو ساعدي وكله شيء $8 إنه وش شقيه علابته الله صار ررو كل يدد بكريسان لها ونحوي يا واحد لما إذا مما يستعين به المقتري oo qofkii wax kireystay uu isticmaalayo oo isticaanaysanayo kaalmaysanayo isagu siiyey isaga ka kireeyey oo kama low akraahu xaanuutan waxaa laga yaabaa inuu ka kireeyey qol dukaan ah liyacmala fiihi sanaacatan uu markaa ku samaysto qalab wax ku sameeyo warshad buu ka dhigayaa biruhu ku samaynayaa waxbuu ku alifayaa meeshaasu sanaaca ku sameynaya warshad aw tijaaratan ama ganacsi buu ku samaynayaa dukaan buu ka dhigaya bakhaar buu ka dhiganayaa من قيمة وحي وأقرضه ومركا ديميو به ما يقيم به صناعته لعقتي وكسو قدان لها قلبك مثلا وحي هل كان قول كان إيجا كري وحان كان ديغانا يا جراش بابورتا كسو مينيا لعقتي مركا وقلبك جراش كوبا هي كسو قدان لها أنا وود دينشي وحا ديمينا يا قفكي ماشي إسكالها وقوريا ككريبا كان ديميي لعقتي أو تجارة وما العقتي والدكان كسو عمران لها بودينشي فأما إن أكراه بأكثر من قيمة المثل سوق انتو كيه وح كبدا هدوك يكريو او العقد ديرادا او صار صدو ان لأجل القرض قرضك سببتا اي تهي وحو العقد بدن او صار سنيا because أنا العقد كسيه مركا واحد بدن بك هيكرينيا أنا ما وقتها كو عمرية ماشا قراشك ألابتيسي قلبك أنا كو قضية مشينة دي كل أنا كو قضية دكان كان عمرينيسد مرفشية دي ألابتي أديق لهاyd كل أنا كو عمرية والعقد هيدا كو عمرينيسا سادرتيد قلال كان كلا أو درس كيغا waxaa lagu kireeyaa $200 kayga waxaan kaaga kireeyaa $300 boqolka dheeraadka waxaa sababay maxay deenkii uu siiyay baa sababay arintaas hadii ay jirto bi faada la khayra fihi khayr ma leeyahay maxaa yeelay laakiin hadduu ka kireeyo caadi uga kireeyo oo dukaamada laba boqol ay ahaayeen labadii boqol uu kaga kireeyo laakiin uu lacag siiyo lacag deyna uu siiyo lacagta deynka ahi ba kiradan uu kireeyay baa sabab u ah la dhihi maayo maadaama uu sicir suuq kaga kireeyo cid kale uu ka kireysan karay hadduu ninkaa kale ka kireysto iyo hadduu adiga kaa kireysto lacagta siiyana waa isugu mid qofkii waxba ma faa'iidin waxna ma khasaarin sidaa darteed maadaama uusan adiga wax gaara ku tarayn sababtuna ay tahay deynkaa siisay deynkaas masaladaas ahayd kullu qardin jara manfacatan fahuwa riban laysa calaa itlaaqihi sida culimadaas ay ka hadlayaan wuxuu kaloo yiri sheikhu فدل على أن الكراء هذا ابن تيمية باسيوة وعيري وها دليل وأرنتاني أتهي مايا وها وتشيخي ولما دي كجوابي سي أرنتي عيد ربا ماشي سوق الشيء ما دام انت لقى كري بروكر كوكسي سوقي سي وترانسكشن فيه كا قاده ما تريد فيه وكا قاده مركز تو اد wax gado ama wax soo gadato uu lacag ka qaadayo lacagtaasi waa ribo qaradkii baa keenay baa laga jawaabaya ninkan gurigii baa laga kireeyay waa lamid kana waxa laga kireeyay suuqii baa laga kireeyay aha internetka deyn baa kan la siiyay oo alaabti ku soo dhigto kana deyn baa la siiyay oo businesskii ku galo waa isku mid ka way banaan tahay hadii sicir suuq ay tahay kana way banaan tahay hadii sicir suuq tahay arintaas waa cadda jawaab cad oo waadix ah oo aan khilaaf lahayn wax macnaha غبار lahayn oo wax boor ay saareen fadalla ala anna al-kira bi ujrati al-mithl wuxuu tusayb yiro daliil u yahay hadalkan sheekh ibn taymiya wuxuu daliil u yahay in hadii ujrata al-mithl laga qaado qofka kiradii dadka kale ay ka qaadayeen laga qaado oo aan waxba dheeraada la saarin la yadkhulu fi al-mamnu' min bay'in wa salaf ma soo galay bay' iyo salaf iswata ma soo galayo marka saadarteed yani inaan lagu xukumin kullu qardin jarra manfacata ala idlaaqiha lagu xukumin wax walba aan lagu abalay gareyn baa saxa waa qardigii manfacadiisu ay daahir tahay faa'iidada laga helayana ay tahay faa'iido deynkii laga helayo ee aan ahayn khidmad lagu siiyey oo ijaar lagaaga qaatay ijaarkeeduna uusan ahayn ijaar ka duwan ijaarkii kii haday qofkii $500 shay joogay $1,000 siisanayay sababtoo ah lacag baad ideymise darteed u siisanayo xabaahu lahaa ninkan wuu dhaqaaleeyay sababta u dhaqaaleynaya maxay tahay lacagta uu deymiye ku dhaqaaleeyay lacag dheeraad u siiyey laa khayra fii u lahaa sheikhu kaas wixii aan ahayn laguma abalay garayn karo haddii nafcu qofka u soo noqonayo wax la taray oo muqtaridka ahna iyadana waa arki doonaa khilaaf male inay culimadu ogoshahay in qofku uu faa'iido ka helo
وكذلك ما ورد في فتاوى ومسائل الشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ المفتي الأسبق للمملكة العربية السعودية، فقد سئل رحمه الله عن رجل جاء إلى الرياض من خارجها. قف رياض يمي شيخي هراء شيخ إبراهيم أيا وحا لويد محمد إبراهيم على الشيخ أيا وحا لويدي ومفتي عام كان سعودي أها. قف رياض يمي مقالة بنان كيدو كي واشترى سلعة من تاجر بالأجل نيمبو وكيب سدي ألعاب وكيب سدي دين لعقت الجدال بنكاسين دونابير يريد أن يتورق بها وحرب أنه عديسته قطه، ولكنه خشي أن يحل عليه ظلام الليل قبل أن يعود إلى قريته. وحكبقي أنتو سيلو غيني مقالدي سكون نقوني إن قبل كودعو إيرلي بمركب بحيا مقالدي سبرب أنه كون نقضو أنت أن لقارين بقدي كبقي هبين لماذا؟ فوكل ذلك التاجر أن يبيعها نيابة عنه ننكي وألابتك كيب سدو دينك كقاقاتي بو إسلا ألابتي وديبته وحير وريا إيقاد ألابتان أو قيمهاس يادا كويش إيقاد عند افتتاح سوق الصباح غد بري مركا لقارو إيقاد إساقي بوكيل كديكت وننكي إساقا دينك كلها ودينك سي أو بروكر كوكلو أها بهدنا وكيله ألابتي أقضية ثم اقترض منه مبلغا قريبا من ثمنها مركزو يري شيئا انتبه لأي سينيا بريتا أدي أقضيسا ما يبي $100 بنكون سينيا هيا $100 دين إسي مركا أوكاشا ومركا ألابتي إذا قدوه كجوسة boqolkaagii markii horena deyn buu alaabta kaga iibsaday bal hadda warkaa dhageyso isagii buu haddana lacag ka sii warqaatay markaasuu min thamaniha qariiban min thamaniha yastawfiyahu taajiru min thamani silcati bacda an yabiicaha fi lghad berri marka alaabta gadid ka qaadu yiri lacagtaadii fahadihi mucaamaladan iyadaahi waa mucaamalo jamacat bayna albayci wasalaf waxay kulmisay beyc iyo salaf bay kulmisay qaala fiiha shaykhu shiikhii markii la weydiiyey wuxuu yiri biljawaazi way bannaan tahay والظاهر سيدا عادي وهو موقته ظاهر كأهي أن ذلك كان أمرا معتادا عندهم زمن كودي شيخ محمد بن إبراهيم حل كودي مسألة عرفية هاي مسائل كبيعة إن بدن أو كمدة عرفية يقول لها بنيان سبب تاسم كولي مسألة وحاكاها لكرنينكي إنترنت يقان أو أي تي يقان أو فوركس إيه إكسشينج كشقيستي إلا فوركس وحي كوبنتاي فورن إكسشينج لبلبو لعاق isugu qafilan labalabo oo aan la kala fujin karin euro dollar yen dollar US Canadian saa isugu qafilan oo labalaba ah oo la isku gado kala duwan oo sarif ah oo cumla ah oo taala internetka iyo netka taala oo la kala gadayo forex ka shaqeysa waa mas'ala marka curfi cusuba kutubtii hore laga heli maayo laakiin waxyaabo u eg oo dhacay oo tan hadda aan ka hadlayna ay kamid tahay oo la mid ah baa la helaya oo markaa meel loo noqdo sida masaa'ilka hadda ibnu taymiya uu ka hadlayay iyo kuwaas hadda aan ka hadalnay oo sheekh maxamed ibraahim oo kale kaanahu rahimahullah waxa ay leeyihiin sheekhu ra'aha khuluwan min cilati manci albayci wasalaf ciladii lagu manciyey dayn isii oo lacagtii markuu qofka ku siiyo $1,000 baad qof ka daynsatay wax ma ka gadan kartaa qofkii beec buu haystaa alaab buu haystaa waniga $1,000 oo dayn isii goorma ay siinaysaa bisha dambaan ku siinaya oo إحسان ويا رنتاس أوكي دينكو إسيي بانوها ربا إنا وحكو قطو وما نساقا باكا قطو ورباحل كان انتاقا دا وكان انتاقا دا وحي آنكا قطو هادي مركا آنان إساقا كوردا غالين ولعق ديرادا سينين سببتنا أي تاي سببتي دينكا إساقونا أوسان شرط إيقاديين لعق تاوك سينيا إلا وإلا أنيقا وحيقا قطو أي سانهين أي تاي لعقتي هو waxyaabaha shubhada oo wadaadadu ay isaareen ba xakamida lacagta inta la tagtid bariis iyo sokor iyo saliid iyo kuma gadan kartid inta isaga ka qaadatidna meel kale lama aadi kartid oo maxaa u laadaysaa servicekii laftigiisii buu ku siinayaa sababta ku siinaya waxay tahay servicekan meesha yaala baad uga baahan tahay lacagtan si kale uguma baahnid lacag ahaanna lacag lagu siinayaa ma jirte waxa lagu siinayaa arraafica almaaliya waxa ay yiraahdaan ama margins lacag kor kuu qaadaysa oo ku siinaysa awood aad wax kaga gadatid halkan iyo halkan iyo halkan ma arkaysa marka sheekhu wuxuu yiri ciladii mancinaysa bayc wa salaf inay meesha ka maqan tahay buu maxamed ibn ibraahim arkay waana arintii laftigeedu uu arkay sheekhi hadda aynu soo marnay ibnu taymiya markaasuu yiri way bannaan tahay thumma zaad wuxuu kaloo diray sheekhu warqad buu wuxuu u diray sheekh maxamed ibraahim kitaabka laftigiisa ku taala wuxuu u diray naasir ibn cabdilcaziiz aljawfaan iyo xamed cabdallah shaclaan laba caalim oo xilligiisii noolaaba warqad u diray markaasuu wuxuu yiri جرى الاطلاع على خطابكم المؤرخ تاريخ داس أتصور سارتين بقى وحا ترى وقد سألتما وحا ليدين ويدي فيه عن رجل استدان من آخر نبا نين لعيك الدين سدي ولما قبض المستدين البضاعة تمركوا بضاعة قاتي قفكي وحدين سدي
منه وكقاتي قفك وكدين سدي استقرض من التاجر بقدر ثمن البضاعة أو أكثر أو أقل وعيري الدين العقد تسوي دقنتها بضاعة وهيستي أما وين لأكتهاي أما وين كيرتهاي أما وين كبضنتهاي إذن كان ليدين ويديو ليه ثم بعد إذن أمر المستدين التاجر أن يسلم البضاعة لمحرج يبيعها وعيري تاني قاضو إيقو جينين كلا أو إيقضا نظرا إلى أنه في بلد نائٍ عن بلد التاجر مشكلة هاي ستنا وحيد ميل كلو السعودية وفوق ومقالة كلو دقيقة وكفوق ورنيو هبل يقول لي بألابتان وأنيكو ألابت كدين سدي حدنا أقول عكا قاتي بوحي الألابتان وحاد أولي بتاع هبل يقول لي بها إيقظو وحاد هاي سؤاش وحال ويدي لماذا الشيخ عالمك علماء بالا ويدي مركز يرو وكان الدافع أن يستقرض قبل أن يبيع البضاعة هو حاجته العاجلة باهي مركا هيسو دقدقة باوحا كينتي inuu alaabtii uu ninkan ka daynsado deynka kaga qaatay oo haddana lacag kaga daynsado oo iyadii uu rahan u dhigto oo yira lacagta alaabtii ii hayo lacag sii dan hadda ay hayso degdega baan ku fushanaya thumma ba'da al-bay' ya'khudhu at-tajiru qimata al-bada'ati tasdiidan lil-qard alladhi aqradahu al-mustadin ninkii marka uu hadhow alaabtii gado taajirka ah alaabtii looga tagay markuu gado buu haddana hadhow lacagtiisa deynka ay ka qaadeen fama xukmu hada nooc muxuu yahay xukunka kan وإذا سلمها المستدين نفسه للمحرج هدو نكان لفتجيسو انت يسوي قاطر نكي كلو ربي إنه وقض ودي بتيسوي دلالك وأمر المحرج أن يسلم للتاجر قيمة القرض ويراد مركا علامتي دي يقد هدو انت قادر العقتي نكاس العقب يقول لي العقتي سي دينك يقبح ويرادو ونكا كلو وكيشو وكيلك وبدله إذا كورن وكان الوكيل هو وكان الوكيل هو التاجر أقرض المستدين أو لم يقرضه من كان تاجر كاهنا وياي وكيلك وأهنك مرنا وكي ديمي وحكرون نقول كرا ميدان يسوق حبات ديناسين فما الحكم أيضا تاسنا أرنتيدو محيط هاي وإذا تماثل رجل مع آخر هديو على أن تكون 10 و15 علما أن البضاعة لم تشتري بعد قد يدان دنبوا كبوديا سببتها ومد آن بنانين يدو وإن يكون في إسقريسانا مرة وكبوديا جوابته يري علماء وحير هذين الحمد لله وحده العقود التي ذكرتم من البيع والقرض والوكالة صحيحة وبنانتها يبير هذا وحي هاي تحلقها واحد جري إلا العقد الأخير فلا يصح كان دم صح ما هبير هذا مركز أساسا وقبودي شيخ وحيري isagoo hadalkiisi wata qoladii jawaabaysay oo lahayd lacagtan ninka laga qaatay waa lagu haddana isla isagii inta deyn laga qaatay isla isagii haddana inta meeshiisi lagu ganacsado ijaarkiisi waa la siin karaa commissionkiisi waa la bixin karaa mana aha beec salaf soo jiiday salaf beec soo jiiday salaf kastoo beec soo jiidana maadaama uusan qofkii madiinka ahaa oo miskiinka muqtaridka ahaa uusan dulmigu dushiisa saarnayn oo isaga aan la fuulayn sababtuna ay tahay deynkii la siiyay aan lagu fuulayn isaga dushiisa aan la saarnayn oo aan xoog loo yeelanayn oo isaga aan la dhacayn saadar macnaha way bannaan tahay kullu qard jarra manfa'atan laysa ala idlaaqi culimadii ilaahay waxay yiraahdeen thumma zaadu waxay ku ziyaadiyeen anna al-qard yakunu bayna al-mushtariki wa muqaddim al-khidmati amma al-bay' فإن مقدم الخدمة لا يكون فيه إلا وسيطا ويجري الشراء من العارضين في السوق حيابي ولادتو كهدلان waxa kamid ah waan aadka ula yaabay qof aad wax ka gadanaysid oo meel kala fadhiya ma jiray yiraahdeen arinta sax maaha forexiskiisa waxba ka aqoon forexiska adigu markaa gashid labada wax kala gadanaya kamid ah qofka wax ka gadanaysa waa qofka lacagtiisa halka taalo lacagtaas baad iibsanaysaa isku sarifanaysaa qofkii marka dollar keensaday دولار كلا جدنا يحكي هاي دتك واحد جدنا دولار كإيبين يكمل يه وبائع دتك دولار كاس كوك جدنا ينكا كوك جدنا أو ينكا كان صدقنا ومشتري جيوي ينكا سهل ينقضي دولار كلايد مركي مش دولار كودي سوق على جلبه أو ين لسوق ليه ينكا سهلين مركي لبع عقد باجرة أو من حاجة فديه من حاجة فديه عالم كاسين كلا جوجان وحنا السببي إني لما قفاني صار كينو يسودوا وين وحكي لقطان ولبداس waxa la yiraahdaa internetka iyo forexiska qofkan ku sababay oo ku sahlay oo dukaankan internetka la yiraahdo by the way businesska markaan baranayay IT business management baan bartay waxa kamid ahayd waxyaabahan baranay storeka waxa la yiraahdaa store front baa front store baa la yiraahdaa internetka marka e business samaysatid waa store
markaad internet ganacsiga samaynaysa waa store ganacsiga adduunka hadda ugu weyn waa amazon bakhaaro ay alaabta ka rartay leedahay laakiin meel intaad tagtid aad alaab kasoo iibsanaysid oo intaad soo gadatid oo lacagtaada aad la baxayd aad alaab soo qaadanaysa ma jirto waa dalbanaysaa waa lagu keenaya gurigaa lagu keenaya ama waa lagu soo shibgaraynayaa ama meel aad ka qaadato lagu sheegay baad ka doonaysaa meel hebla kasoo qaadaa lagu leeyahay saas oo kale marka khidmadan uu qofku ku siiyey oo suuqaas adiga qofka kale aad ku kala gadanaysaan isagu wasiit buu ka yahay simsaar buu ka yahay dilaal commissionkan intaasu ku qaadanaya labadiina isukin keenay sababtii buu yahay isugu timaadeen wax ku kala gadateen saas oo kale على ذلك فإن صورة البيع والسلف إن وجدت ليس على صفة ما ورد النهي عنه علماء وحي هذا مركي كجوابين مسألة وحي للنهيي معها بيع وسلف مركي دليل كاس بيع وسلف حاجة إنا كدب أرنتان قائم كماها صحيح كماها ولا ددو يجو دبها ودراسيين oo intay iyagu furtaan ha ogaadeen bal sheekada ha baareen forexiska markaad furatid 1 to 1 iyo 1 to 10 iyo 1 to 100 iyo 1 to 200 iyo 1 to 1000 baa so far inta ugu badan oo aan arkay aniga waa 1 to 1000 mardhow waxaa laga dhigi karaa 1 to 10000 masaa'il badan oo ay ka hadleen oo ah khasaaradu say u dhacayso iyana xaqaa'iqda lama socoto warna kama hayaan saas oo kale marka 1 to 1 iyo 1 to 100 ka iyo marginka iyo haamishka lacagta kale ah oo leverage-ka la yiraahdo oo adiga lagu siinayo oo dheeraadka ahi waa awood lagu siinayo inaad meesha $100 wax ku iibsan lahayd faa'iidadaaduna ay noqon lahayd $2 inaad iibsatid 100,000 oo markaa faa'iidadaadu ay noqoto $2,000 $2,000 isagu waxba kuma laha faa'iidadaada iskale masalada labaad ee waadad u baahan yahay waxa weeye faa'iidada ninka brokerka ay waxba kuma laha brokerku muxuu leeyahay haddaad khasaarto iyo haddaad faa'iido labadaba wuxuu leeyahay lacag go'an oo transaction fee ah markaad wax gadatidna waxbuu leeyahay markaad wax kasoo gadatidna suuqa wax kasoo gadatidna lacag fee kugu leeyahay markaad sii gadidna fee kugu leeyahay feegaas wuxuu la mid yahay bangiyada Afrika ka furan iyo meelahan xataa North America qaarkood markaad lacag dhigatidna waxbaa laga qaadaya markaad la baxdid lacagtaadina lacag baa laga qaadaya lacagta feega ah oo transaction fee la yiraahdo ama khidmatul safqa la yiraahdo bay la mid tahay oo la xukun tahay xaraana ma ribana ma qaradkana wax kaga xiran ma jiraan haduu 100,000 ku siiyo iyo haduu milyan ku siiyo isku siba inta rabtid ka faa'iid hadaa 1 milyan maanta faa'iidid oo hal mar aad samaysid wax gadid intaad hal mar lacagtii wada gelisid meel oo ku kaco suuqa ku kaco oo $1 milyan ay ka faa'iidid maanta isagu wali $50 buu leeyahay ka badan ma laha saadarteed qardun jarra manfacatan saxiix kuma masaladan dib marka ugu noqdeen wadaadadu qodobka labaad oo laga dooday waxay ahayd cadamul qabdi warbeeca waxaa shardi u ahaa nabigu sallallahu alayhi wasallam sarifka markuu ka hadlayay laba isku mid markii la gadayo shardiga ay leedahay shuruudaha ay leedahay waxay ahaayeen inay noqdaan mithlan bimithlin sawaan bisawaan haa'an wa haa'an yadan biyadin haddii ay kala duwan yihiin fa idha ikhtalafat al-ajnas fabiicu kayfa shi'tum إذا كان يدا بيد بير النبي صلى الله عليه وسلم هذا لو شيء كلا دوان كلا قدانيسان أو دولار إيو يورو أسكو قدايسان ولا بكلا دوان سادون تان وكلا قطة أنت عرفتان إسدافية أنت عرفتان كلا كورمارية بقرانيسا وحا كلا قدانيسان أو آد كلا إبسانيسان إذن كحرقة ما دام أو يهيبا ويري إيديب أنا أنكو ديبه مثلا علماء بوغ بيكا كينين سببتا كينتين وحوية ما بقرانيان انترنتك أوديس انترنتك مركا أكون كل هذا إيميل كاغو كلا مثلا إيميل كاغ هذا وحكو جرى معلا إسكالي بسعيد كلا إسكالي مركو كوغو صد أغفكي إيميل كوغو صدري ما كاسو عشان كرا إيميل كيسي ما سيش دي هذا تكست لوغو صدره تليفون كاغ لوغو صدره ديب ما لقاقع عشان كرا مسج كي ما يلقاقع عشان كرا الله إسكالي it's your property ما شادو كصود عاي خلاص الله إسكالي قفكي هدورة ما هترتر نيعسو كترتري كرا لكن دكا كما ترتري كرا bangiga marka inta tagtid aad $10,000 dhigatid anagu online baan wax ku gadanaa jeega marka lagu siiyo online baan ku process garaynaa waa sawirnaa labada dhinac ka sawirnaa waa deposit garaynaa markiiba lacagtii waxaan ku aragnaa akoonka noogu jirtaa waa ku ganacsan karnaa qaarkood dhowr bari
toban beri 15 beri baa la sifeeyaa oo akoonka nooca jeegay ku xiran tahay jeegaga waxaa jira 15 beri qaata lacagaha badan oo internationalka anaga hadda Canada nooga yimaada mararka qaarkood 15 cisho qaataan mararka qaarkoodna waa automatic oo markiiba dalaq bay yiraahdaan waxay ku xiran tahay qaabka loo soo diray iyo meesha laga soo diray iyo nooca uu jeegaasi yahay bay ku xiran tahay soo ma arkaysid marka qabdiga laba nooc weeye cilmiga fiqiga marka la joogo qabdi xukmi ah iyo qabdi xaqiiqi qabdi xaqiiqi ah maxaa la yiraahdaa hoo $10 isii shaygan waa ku dhiibay adna waa u dhiibtay marka u dhiibtay khalaas lacagtii gacantaada soo gashay adigu maadaama aad dukaanlihii tahay adaa iskale waa qabdootay gacantaa ku dhigtay qofkaana lacagtii aa u dhiibtay dhinaca kaluu alaabtii aa u dhiibtay buu iska leeyahay qalinkan oo kale baan kaa gatay $1 baan kuu dhiibay $1 baad qaadatay anna qalinkii baan qaatay qabdi baa la yidhaha kaas waa xaqiiqi ama internetka adiguna Canada joogtaa aniguna Canada joogaa adna China joogtaa waxbaan kala gadanayna see suurtagal ku tahay inaan isu dhiibno wadaadada raadinaya marka inaan isu dhiibno gacan iyo gacan ay noqoto waxay ku nool yihiin caalam kale hawshoodii maaha hawsha ay ka hadlayaan kuwa xukmiga haddana raba inuu xukmigii noqdo ilaa waxaan anigu ogahay oo hubo oo 100% aan ogahay iyagaa shaki kaga jira waxaa jirta waxa la yiraahdo conspiracy Soomaaliduna hadda ay ku badatay buufis nooc buufiska ka mid ah weey wax alla wixii dhaca balaaya ka dambaysa yahuud baa ka dambaysa wadaada waxa arkay suuqan yahuud baa iska leho dadka muslimiinta aba la dhacayaayo war jahliga inta tirada la eg looma baahna yani waa jaahilnimo weey yahuudu awood haday u leedahay caalamkaas oo dhan bay kufsan lahayd oo dhici lahayd oo qaadan lahayd ma qaadan karto caalamkaas waxaan waa la isla leeyahay regulations baa jira iyo system ilaaliya dawladaha maxkamado iyo systemyo ay leeyihiin ku ilaaliya anigu Canada markaan joogo forex markaan rabo inaan galo kambaniyasha forex ku aan gali karo waa all of them are regulated dawladda isha ku hayso ilaalinaysa haday dhacaan waa dacweynaya lawyer baan u tagaya maxkamadda la keenaya waxayga waa la siinaya soo ma arkaysid marka yani qabdiga xukmiga markaan anigu aan click siiyo oo aan shayga iibsado mesela hadda Amazon dadka wax ka gataa way garan karaan ama eBay ama e-store oo dhan dadka wax ka iibsada way garan karaan marka inta shay fiirfiirsi hadda dukaamadayadii anaga wadanka aan joogno ugu badnaa ma Walmart ba ma Sobeys ba wax hatta cuntadii bay hadda maraysaa in lagu soo deliver gareeyo drone baa keenaya diyaaradan yarta oo remote lagu wadaa gurigaaga darbigiis intay backyardkaaga timaado halka ku dhigaysa alaabtii halkaas ka soo qaadanaysa cuntadii baa dalbanaysa caano waxa leeyahay 5 joogo caanaha la isoo dhiibo 5 caago caanaha baa lagu soo raraya daroon huguguf gadaal bay dhigaysaa soo ma arki hilib baa dalbanaysa waxa rabaa waslad hilib oo halkaas lagu soo dhigaya yani waxa lagu kala gadanaya marka maxay tahay online iyo internet the minute aad tiraahdo marka sell ama aad tiraahdo buy lacagtii akoonkaaga ku dhacaysa marna way ka maqan tahay way ka baxaysaa hadaad adigu gadatay shay akoonkaaga lacagtii way ka baxaysaa waxay ku dhacaysaa qofkii ka gatay akoonkiisa processka marka Amazon oo kale mesela markii qofkii akoon Amazon kule baa garan kara forexku Amazon ku lamid yahay ku dhow yahay in badan markaad akoon ku leedahay Amazon oo aad seller tahay alaabta aad maanta iibisay waxay qaadanaysaa process lacagtii waxay ka soo qaadayaan qofka waxa laga yaabaa inuu credit card isticmaalay credit cardkiisii bangigiisii bay la xiriirayaan hebel baa naga gatay shay $20 jooga credit cardkaasuna isticmaalay waana kan saxiixiisii aqdigiisii akoonkaan oo galay halkaas ku kili garay bangigu marka way hubinayaan kadibna lacagtii bay u dirayaan Amazon markay lacagtii hesho ay soo gasho bay adiga marka akoonkaaga kugu shubaysaa time bay qaadan kartaa ijraa'aadka timekaas uu qaadanayo yani uu isbedelayaa min shirka ila shirka from company to company buu kala bedelan yahay service-kooda kala orod badan systemka isticmaalayaan baa kala dhaqso badan waxaas oo dhan baa jira marka qabdigii xukmiga ahaa halkaan ma ka jira mise kama jiro waa xaqiiq inuu ka jiro bal maxay ka yiraahdeen culimadii diiday waxay yiraahdeen uquud ash-shira' allati tajri dimna nidaam tijarat al-hamish mashruut fiha adam al-qabd waxa lagu heshiiyey oo ku qoran documentiga hamishka ama waxa la forexka inaadan dhihi karin qabdi xaqiiqiyan rabaa lacagta gacanta la igeliyo maanta yuuro gatay ilaa yuuradaydii baan rabaa inta brokerka u tagtay ma oran kartid oo yuuro ma bahayaba haduu doono midda kale akoonka adigu aa leedahay oo meesha aad degan tahay ku yaala oo lacagta aad ku furatay
lacagtaasa adiga base ku ah oo saldhig ku ah haddaa lacagtaa kugu jirta akoonka dalbatid waxaa loo bedelayaa sarifku maalinta intuu joogo hadday dollar tahay lacagtaadu dollar baa loo bedelayaa hadday euro tahay euro loo bedelayaa haddaa canadian tahay canadian baa loo bedelayaa haddaa jaban joogtid yen baa lagugu bedelayaa lacagta meeshaas bangigaas available-ka ka ah baa brokerku kuu diyaarinaya bangigaaga kugu shubaya waxaad ku xiraysaa forexiska annaga hadda dhinacayaga akoonkaaga ku xiraysaa lacagta markii aad marka process garaysanayso rabtid inaad kala baxday brokerka akoonkayga iigu shubaaleeda akoonkaaga kugu shubaya xaggaasi kugu dhacaysaa haddaa rabtid intaad toos ugu tagtid brokerka baa leedahay isii check buu ku siinayaa checkaad bangiga geysanaysaa waa deposit garaynaysaa lacagtaada adaa iskale qabdigii marka xukmiga ahaa oo aan ahayn kii xaqiiqiga idhibka aan ahayn waa saxiix meeshaasu ka muuqdaa wax hadal oo ka jira na ma jirto haba yaraatee marka wadaadadana waxay yidhaahdeen ma aha qabdigii xukmiga ahaa meeshaan kama muuqdo maadaama labadan qof ay ku heshiiyeen inaan qabdi xaqiiqiya jiri karin arrintaa marka beecoodii wuxuu noqonayaa faasid oo waxba kama jiraan hiya wuxuu leeyahay marka shiikhu wuxuu yidhi hada rubama kana mansuusan fi litifaqiyati wa fi lxaalaati alati laa yanusu calayhi fainahu jaarin calaa curfi hadihi tijaarati tijaaradan curfigeeda saas ah hadday qoran tahayna way qoran tahay haddaysa qornayna ma qorna laakiin mar walba waa saas soo ma arkaysi wahiya ana alqabda fiiha xukmiyun qabdigii waa xukmi ee ma aha xaqiiqi waina almushtari laysa lahu ila an yabiica ma ishtara ilaa طarafin aakhar walaa yaqbiduhu qabdan xaqiiqiyan qabdi xaqiiqiya oo gacanta iigu dhiib oo iidhiib ahna ma dhacayso wixii uu iibsanaya qofka kale ka iibsanayay buu iibsanayaa waana xukmi وهذا العرف صار باستقراره كالشرط وأخذ حكمه لأن القاعدة محايا هاي شرط يوكلون نقضي بوليها أرنتان عرف يعني محايا القاعدة وحي هاي أن العرف عرفا كالمشروط شرطا وحي عرفي أهان ليس ليقان أو دادكو أي كل رقمان أو رقم كدادك شرطي وكلوي شرطي وكونديشن وحاس إلا وإلا ساوى إنا يشاء قالوا هذا شرط مخالف لمقتضى العقد عقدك مركا لفيريو شرط خلاف سن عقدك مقتضيه سيوي ويفوت على المشتري مقصود العقد قفكي مشتري اها وحيب سنينا وحا كلميا عقدك وجددو كلها ومحايا هيد انو يين بان كتي يينكيغا هلا يسيو يوران كتي يورديدا هلا يسيو با كلميسا waxay isugu khilaafeen buu yiri sheekhu هذه المسألة على قولين أن البيع بهذا الشرط فاسد ومفسد لتجارة الهامش هذا واحتجوا maxay daliishadeen qoladii marka mancisay waxay yiraahdeen falcuquud muujabatu lilqubuud markii caqdi iyo heshiis la galo heshiiskaas wuxuu keensanayaa idib qabdi buu keensanayaa wax idib in wax la kala qabdoodo la kala gudoomo ko والقبوض هي المسؤولة المقصودة المطلوبة أرنت دن أو جناعسي laga leeyahayna oo loo socdo u ah gaayada u ah oo la rabo in la helo la xaqiijiyana waa qabdigaas iyo wax la kala qaato wax la kala helo ولهذا تتم العقود بالتقابض من الطرفين عقودنا waxay ku guulaysataa labadii qolo inay wax kala helaan oo ay kala qaataan saas oo kale ولذلك فإن اشتراط عدم القبض يفوت على المشتري مقصود العقد وعيرا سببتها درتين قفكي wax gadanayay shardigii dhamaayo ahayd markaan wax gato waxaygii waa inaan helaa baa ka fakanayo meesha ka maqan waxayna daliishadeen waxayna sheegeen inuu yahay fasaad hadi almucaamala mucaamaladaas inay fasaad keentay oo aysan waxba ka jirin waxayna yiraahdeen liana albayc idaa lam yaxsul fiihi qabdu lmabiici fakaanahu lam yakun qofkii haddii uusan wixii uu gatay qaadan karin waa like inaan beec jirin oo kale la mid tahay waxay qiimeynayaan marka waa wax dukaan laga soo gato oo kale wali qiimeynayaan oo qabdigii xaqiiqiga ahaa wey waxay ka hadlayaan qowlka labaad muxuu yahay midda kale waxay dhaheen qarar baa ku jiro wixii nala siiyey inaana helin baa laga yaaba qowlka labaad muxuu yahay aljawaaz qoladan tiri waa bannaan tahay arrintaani khaladna maaha waxa ay yiraahdeen oo ay daliishadeen waxay tahay waqad radda almujiizuna ala hadihi alxujaj bilqowli ana shart cadamu alqabdi almadkuur gayru faas lihadihi tijaara liasbaabin sababa dartood in shardi ay tahay inaadan dalban karin wixii in hadhow gacanta lagu geliyo iyadoo nool yeen baan gatay yeenkaygii baan rabaa kanadaana joogaa waaba adagtahay waxaa laga yaaba bangiyada kanada o dhan in laga waayeen baa suurtagala maxaa yeelay kama aha businesska macruufkoo la yaqaan oo wax lagu kala gato kanada maaha laakiin dollar maraykan haddaad dalbati waa lagu siinaya dollar maraykan iyo mid kanadiyaana bangiga waad ka soo qaadan kartaa xoogaa sicirka ka qaalisan bangiyada meelaha kalea ka jaban laakiin waad soo helaysaa wuxuu yidhi
ما وجد في هذه التجارة من عدم الشرط من شرط عدم القبض إنما يتعلق بالقبض الحقيقي. وروح لقى هذا ليها ولا ليها الشرط بيقطها أو كقرن conditions كأصحيح يصير كتيرة أو فوركس كأي صحيح يعني إن هذا ويدي سنكرين إيدي أو قبض جاهي وقبض حقيقي جاها أو إيدي بها أو قعنت إن لو قدومها. أما القبض الحكمي قبض حكم جاها وهو انتقال الملك فهو موجود ومعنيه سيهي inaad awoodii mulkiga adigu aad la soo wareegtid ninkaasaa $100 gadayay waxaad kaga gadatay 70 euro ama 80 euro oo markaa uu joogo baad kaga iibsatay boqolkiisii dollar mulkigeedii adaa iskale akoonkaaga ka muuqata isagana tiisi waxaa ka muuqata $70 oo 70 euro baa ka muuqata kala wareegaas ay markiiba saa u kala wareegayaan oo aad kala yeelanaysaan oo uusan ka daba tegi karin $100 kama soo daba tegi karo adiguna 70 yen kama 70 euro kama daba tegi kartid kala gudbintaas la kala gudbiyay waa qabdi xukmiya akoonkaaga ku jirta cid ka saari karta ma jirto adiga aan ahayn bas warkaaga hadii la jabsado oo lagu khiyaamayo oo lagu dhaco scam iyo tuugo ay ku xado waxay la mid tahay dukaankaaga iyo aad xiratay oo caawa la jabsaday oo alaabtii laga gurtay bay la mid tahay laakiin si kale oo looga bixi kara lacagta meesha kugu jirta ma jirto mulkigii marka ahaa inaad la soo wareegto adigu aad yeelato waa xaqiiqi meeshiiba ka muuqda wuu ku yaala ولو أنا أركي بعض العلماء وذادي هدلاي إنه يبقى حتى كل شيء أرقام فالسة وي أرقام فالسة ما دي أرقام فالسة تاي محاها داي دين وكل شيء يصير أو الربا وي يقول هاي ما أرقام فالسة والربا قابشة ربا دول العقبة هاي ليش أنا العقبة على دا يريو حتى لو نمبر ربنا هدي نمبر ربنا يهينه ماشي كم موضوع واحد تراهين ده شيخ هاي حبيبين والربا ماشي تعالى إيو شيء كذا الله يمان موجودة قبض باللوبة بيع باللوبة إنا كهذا شباب ما هذي فالستها هاي تطبع جيم عيارية مركز كده وارمها جيم كوكلي لما عنتها هدوسن وذاكو إلى حد كهالكاس وسن فاهم سنين بواحد فوركس ليها ولا عجا وكاشة وده كله ليها وكان ورادين أمازون أنت قف كشة قيستيا يغن 200 بليون ويه نينك إسكاله كليجيس أسد كيسو دات كشة قيستم هذا مرينسا أو مليونيسا أو أكو مكوا ده له ألعاب كده أنت يسوي إبسان سي كده أو هاك إبسان كان سي كده فائدة كهلا ألعاب تودي كوكا حتى هايستانو دوغا إي بي waa taqaanin iyo Shopify iyo kambaniyal waaweyn oo laga noolaaday baa jira soo markiis sheekhu marka uu yiri qabdigii mulkiga intiqaal mulki inuu kala wareego lahaanshihi waa mawjuud buu yiri وليس من هذه التجارة نفي مطلق للقبض الحقيقي فهو في هذه التجارة موجود قبضي حقيقي أهانا إسنا وجرة أو محوية واحد صوت دونانيسا واحد كدونانيسا قفكي العكتا ما تجارة إيادا لقوما بطلانين كرو أما لقوما بابئين كرو نفي مطلق للقبض الحقيقي فهو في هذه التجارة موجود ولكن لما كان غرض أكثر المتعامل عدم القبض فرق أرباب هذه الصناعة بين من يريد القبض الحقيقي ومن لا يريده حتى يتمكن تحميل تكلفة القبض الحقيقي لما يرغب فيه دون من لا يريده قفكي مركا ويمادو بروكركا ويرادو أنو $1 بان قدانيا مركان قطانا $1 بان كاربا إنان كعنتا كاقدقو وحكوليه هاي ما جرتو أرنتاس سالو ما شقيه هي سالو سان لو شقيه رالي با كتاي وقليسا والمسلمين على شروطهم دادكو هدي وحكوية شيئا شيسكودي وصعنية ساسو كلي معايا شيسكو تاي قبضي حقيقي إن هذا أركين هي قبضي حكمي أركيسا لعقتو أكون كاي كوكو عيسا قرمي حقيقي نغنيسا أكون كي لعقتي كوكو ترتي مثلا بقولكم بفايد مركي ورانا طبانكم بعد قطع بقولي $10,000 با كوكو ترتا وعلى هذا العقتي دينا الله بحان ربا وخلاص مركا ترى هذا العقتي إيدي بوست كاري أكون كي يغوشب أكون كاقي بنكي أها iyo brokerka inta u dhaxaysa ijraa'aad bay qaadataa maalmahaasna wax mancinayo sharci ma jiro saa darteed qabdigii wuu joogaa waxay kaloo ka hadleen culimadu ma la gadi karaa shay aan gacanta lagu hayn waxay yiraahdeen lama gadi karo lacagta akoonka ay igu jirto anigu aan intaan $1 gaday wali igu jirta waxay dheen hadii aad akoonkii tagtid oo aad tamacdiina lacagtii soo qaadatid mudday qaadanaysaa macnaheedu waxa weeye ma haysatid bankigayga aniga hadda lacagta igu jirta oo anigu aan leeyahay oo aan shaqaysto bankiga ii taala hadday ka badan tahay amount la isla yaqaan 3,000 ka badan Canada hadaarti inaad banki kala baxay waa inaad telefoon u dirtaa tiraahdaa 3,000 ka badan baan rabaa 10,000 baan rabaa
waxaa lagu leeyahy goormaa rabtaa haddaa kaash u rabtid maantaan rabaa maanta heli maysid berri ama saa dambe baa lagu ballaminayaa soo doona waa lagu aruurinayaa waa process macnaheedu ma xaaraan baa marka inaan bangiga lacag dhigto maadaama ay process qaadanayso xaaraan weeye haddaad tirahdaan dee bangiyadoo dhan ba xaaraan noqonaya wax la dhigto maxaa yeelay jeeg haddaa geysatid mudduu qaadanaya haddaa lacagtaadii adigu aa dhigatay dabcdi inaad kasoo wada qaadatid oo lacag badan ay tahayna mudday qaadanaysaa marka muddada ay qaadanayso ma waxaa leedahay qabdi ma jiro anigu lacagtii ma haysto akoonkayga markaan furo onlineka aan galana waan arkaya lacagta inay ii taalo bangiga akoonkayga ku jirtaa cid igala bixi kartana ma jirto ma waxaad dhahaysaa marka isagana bangigana waxaad odhanaysaa haddaad taa tiri ma jirto forexiska tiraa waa xaaraam sababtoo ah qabdi xaqiiqiya meesha ma yaallo oo maba jiraba waa khuraafaad yacni waxaad ka hadlayso wax jira maaha waxaa kaloo la sheegay in loo shardiyo qabdi fiqhan in loo shardiyo masale laisku waafaqsanya maaha culimada qaar baa waxay ogol yihiin rati kaa baxsaday inaa iibisid nin addoon oo aa leedahay oo baxsaday oo cararay oo la ogyahay inuu haarib yahay inaad gedid alaab lagaa dhacay oo qasbi ku maqan oo xataa la aqoon meelay jirto laakiin sifadeeda la yaqaan in la gado wuxuu yiri wax badan bay ka sheegeen waxay dhaheen ذهب فقهاء الظاهرية إلى أنه لا يشترط في صحة البيع أن يكون المعقود عليه مقدور التسليم ما بقوا شرطيان إلا وإلا إن السين كرتي وحي إن كايا قدنيو وكوجد ميو بيع كوجد ميو وإنما الواجب ألا يحول البائع بين المشتري وبين ما اشتراه وهذا كاف إنه قفك وحكا قضي أديك إيا شيء وكا قضي إنه سندين دحين بشر دي يرهدين لكن يديب إنه سو كودي بما مثلا كرتون بكا إيبيي كان كاتيما حتى كرتون كان ميقا لقضا wuxuu ku yiri $5 baan gadaa hoobaa tiri $5 waa u dhiibtay isagu $5 buu qaatay laakiin isagu waxba kuma dhiibin halkaasaad ka qaadanaysaa laakiin hadduu idin dhex galo adiga iyo kartoonka uu yiraahdo ma taaban kartid hadda beec ma dhicin lacagtaadi boob ku qaatay laakiin hadduu kaa leexdo adigu aa qaadatid khasab maaha inuu isagu kuu dhiibo tasliim gacanta inuu isagu kaaga dhiibo khasab maaha laakiin haddaa wixii adigu access u leedahay aad qaadan kartid akoonkan meesha yaalna access baa u leedahay adaa iskale waxbaad ku gadanaysaa waad daysanaysaa ويساعدك كحرنانيسا مركا رتا كلا صو بحيسا هدا كلا صو بحدي العقتادي وي هدا يكون تالا والعقتادي هدا يعني قبضي حكمك يكي حقيقة لبديبا وي وقت إجراءات بروسس وحا اللي يرادو باي مران لكن وحي ماشي يالان أدانا إسكالي ما دام فقهادو أي أقوليهين حتى شيء مقن وأن أولين إلا كلاقتنا ساسو كالي فاسد كدي ميسو بلو الشيخ وأضاف القائلون بالجواز وحي كدر ينقلاد أقول جوازك oo baneeyay maxaa yeelay wuxuu yiri ninka tijaarada haamishka la yaxulu bayna al-mushtari wal-qabd kama aslafna kull ma fi al-amrayn ma fi al-amri an al-qabd yatarattabu alayhi ijra'at jadida wa daf'u rusum idafiyya waxa jiri doonta markii aad bangiga hadda lacagta kala baxaysid lacagtaada hadda qaadanayso akoonkaaga xiraysid fee baa jira qaarkood fee ma laha qaar waxa jira monthly fee qaar waxa jira weekly fee soo ma arkaysid monthly fee hadda markaa qaybisid maalmo qaybsay soddonka maalmood maalin walba in go'an bay leedahay mas'ale kale weeyo aan arki doono iyaduna buuq kicisay rusumu tabyidka mas'alada la yiraahdo iyaduna kamid ah masaa'ilka ay wadaadadu ka hadleen oo khilaafka galiyay marka saddex mas'alaan hadda ka hadlay laba nooc ay dhaheen ribo weeye midna ay dhaheen waa laba nooc baan ka hadlay ribadii qaradka iyo waxaan ka hadlay qabdigii waxaan kaloo ka hadli doonaa ribada iswaabka waxa la yiraahdo ama riba rusumu tabyid la yiraahdo oo ay dhaheen iyadana waxay ahayd riba nasii'a ribadii dibdhiga waxa ajasha ah oo daynkii aad qaadatay maadaama aad xilligii loogu talagalay ku dhameyn weyday ganacsigii oo 24 hours aad ku dhameyn weyday haddii ay ku barido riba lagu saaraya waana ka hadli doonaa arrintaa insha allahu tacaala saasoo kale ama aan ka gudbaba masaladan culimadii way isku khilaafeen qabdigii xukmiga ahaa iyo kii xaqiiqiga ahaa labadiiba waa thaabit waana sugan yihiin dadka dhahaya ma jirtana iyagaan masaladii baysan si fiican u akhriyin ama akhbaar fiican baysan hayn ama waxba waysan ka garanayn waxyaabaha online businesska la yiraahdo waxay u baahan yihiin marka inay dib ugu noqdaan oo ay bartaan masalada more ay bartaan inta la baranayayna ku xiran tahay iyadaa xalaal iska wada ah oo aan cidina dacwo ka qabin waynu arki doonaa qodobka masalada saddexaad oo la isku khilaafay waxa weeye alcibratu fi alcuquudi bilxaqaaqi walmacaani masaladan hadda uu shiikhu sheegay oo uu yiri riba dayn baa ku jirta riba dayn oo uu yiri haddii aad 24 hours kala wareejin weyda beeci
lacag baa lagu saaraya waxaa lagu murmay lacagtaasi maxay tahay ma daynkay saaran tahay oo daynkaas aa qabtid dartiisa lagu saarsanaya mise businesskaagii baa wuxuu ka gudbay maalin oo maalin kale u gudbay mathalan dollar baa gadatay dollar baa haysatay yuuraa gadatay yuuradii baa si fiican aan u kicin oo faa'iido kama muuqato oo haddaad gadid waa uun fiigii ninka commissionka qaadanaya lacagtiisii baa meesha ku jirta ama wax badan kama faa'iidin waxaa la qiyaasayaa khabaar iyo waxbaad akhriday midda kale dadka stooga iyo forexiska iyo ka shaqaysta 24 hours waxay akhriyayaan akhbaar bay akhriyayaan information waxaa jira ridaya ama kicinaya nooc silcada ka mida iyo beeca waxaa laga yaabaa qof madaxa oo meel madax ka ah inuu hado Donald Trump maalin walba wuxuu affect gareeyaa suuqa wall streetka markuu hadlo oo yiraahdo China canshuur saaraya dhulku galaa suuqu muxuu galayaa qof walba la cararaya waxiisibu kala baxaya meesha يعني marka dadka waxbay akhriyaan waxbaad akhriday waxa ogaatay bari hadaa daysatid in yuuradu cirka ku dhageyso bari maxaa yeelay waxba isbedelayo election iyo waxba ka jira dhinaca Ingiriiska iyo dhinaca Yurubta wax ka jiraan isbedelkaas bari dhacaya waxa dhacaya waxay keenayaan lacagtaada inay cirka gasho waa daysatay ninkii dukaanka iska lahaa dee dukaanku waa kiradii aad bixisana one day bay ahayd maalin kale u gudubtay maalintii kale u gudubtay ma free ba ma lacag laan ba ma lacag laan ma maxay tahay lacagtaasi marka waa ujratul yawm waa tan bangiyadu anaga naga qaadaan oo shahriga ah oo billaha ah oo maalin loo qaybiyo maalinteedii way soo ma arkaysid culimada marka way isku khilaafeen oo qaarna waxay yiraahdeen waa daynkii lacag la saaray oo faa'iido oo qarsoon qolana waxay yiraahdeen may iswaabku waa rusumul mabit laakiin waxa kale oo jirta firaaran min al khilaaf waxa la helaa كمبنيال فوركيس أو عن أقولي أم بكوكو خصبين بإسواب إنها بحسين أي سيكا فرنان كرتو مالين لبن مالمو شن مالمو طبعا مالمو إنت دونت أي سيكا فرنان كرتو وأن العقد هذا بلغا قادين ترى سكشن في كليه لغا قادي إسواب في بأن لهين كوا سعادي كرتا مركا هدي حتى شكي وكجرو لكن أنا شكي قمت جرو إنه تهي إيجار أي تهي أجرو هاي اللي بخارة دا لاب دقتي وأترى آلات تانية هاي بخاركو سبيس يربو ليه سبيس كذا علامتي كوتها الله بالبيكو أوليسا وهالشيسين وحاتر ميق علامتك قرما إيجا قادنيسا سدح بري فان كا قادنيا سدح بري وحكير وحن كا قادنيا $100 وايه ما أنتي مركا وصدني $100 هدي عاد مركا كدرستي لبا مع الموضوع كله هذا عيا ده لبا مع الموضوع كله العقد كا قاديا أو من $100 واللي حدني $7 بعد كدريسا العقد أكو شيسين oo $100 buu ka qaadaya maalinta shanaad marka uu timaado alaabtaada ina qaad hala meesha waxa laga kiriyay 3 cisho 2 cisho kale ma free ba ma free ma business aa u shaqeeya ma jiro adduunka meel wax la dhigto oo lagu ganacsado oo suuq ah oo free ah ma jirto kuwa ogol marka kuwa ogol aad laakiin hadaadan aadin ujratul mithli ma laga qaadaya shalay intii laga qaaday ba maantana laga qaadaya oo waxa laga qaadaya meesha laga kireynaya businesska laga kireynaya aniga marka ilama muuqato inay xaraan tahay laakiin culimadu waxay yiraahdeen mancisay oo tiri ma banaana qardiga waxay dhaheen al muqaddami min as-simsar ila al mushtariki وإن قيل إنه قرض حسن هو في حقيقته قرض بفائدة وتظهر الفائدة فيه في موضعين موضع كواد وحوي رسوم مقرنيسة رسوم المبيت كاللي هذا فإذا اشترى الإنسان ولم يتخلص مما اشترى بالبيع في دوام يوم واحد فرضت عليه الفائدة ولا احتجاج بعدم فرضها خلال دوام اليوم الواحد لأن عرف المصارف قد قام على حساب الفائدة يوميا وليس بالساعة يعني waxay ku doodeen maalin bay ahayd marka saacad ma ahayn maadaama 24 hours kadib la gudbiyay maxaa lacagta la ii saaraya oo la iiga qaadaya farqi ay leedahay tan iyo faa'iidaduna ma jiraan bay dhaheen laakiin qolada ka jawaabtay waxay yiraahdeen ورد المجيزون بأن القرض موجود واحد قرضي واجوغا ولا غرو أنه عمود هذه تجارة الفقر أرنتان إنترنت كأهنا شكي مره إن لعقته يكون لسانتها لعقتها دينك وليس سينيو ولكنه قرض لسان حال المقرض قفك هدلية ولسان حال كيسا ديمينية أي أفك كتاي دين يقول المقترض إن رددته في يومه فلا شيء عليك وإن رددته بعد ذلك عليك دفع الفوائد فإذا اختار المشترك الصيغة الأولى
فما المانع من ذلك واحد لبا صيغه با suurtagala hadaad habeenkii gudubtid lacag baa lagu saaraya hadaadan ba gudbin ka waran فما المانع ليس هناك مانع wax lagu manciyaa ma jiraan maanta baan furtay alaabtaydii baan gatay caawa waa iska gaday 24 hours inta la gaarin baan iska iibiyay wixii aan faa'iido iyo waxaan khasaaro nasiibkay waa ku kala baxnay meesha riba ma taal buuqba ma yaal wixii ay wadaadadu ribada ku sheegayeen oo ahaa riba nasii'a iyaduna ma taal haddii scenaariyaas la maro siiqada labaad haddii la marana iyadana khilaaf baa ku jiro oo culimadii qaar baa waxay leeyihiin ma aha riba waa ijaar anigana saasay ila tahay inay ijaar tahay waxaan kaloo rabaa inaan ka digo in wax lagu dhiso dad aan aqoon u lahayn ganacsiga online-ka waa wax cusub wadaadadu intay baranayaan ha u kaadiyeen intii taqaan oo aqoon u leh ha ka jawaabeen mararka qaarkood waxaa laga yaaba wadaadadu inay yidhaahdaan waxaanu la tashanay dadkii aqoonta u lahaa waxay noo sheegeen ciladihii jiray ciladihii markay noo sheegeen oo noo warrameen baanu markaa xukunkii sharciga ah ku dejinay waa wadaadadii shalay ka hadlayay masaajidka masaa'ilkay ku doodeen bay ka mid ahayd annagu xukunkii sharcigaa baan ku dejinaynaa laakiin alxukmu cala shay farcun can tasawurihi baa layidhi shay in wax lagu xukumo waxay farac ka tahay suuradda aa ka haysatid muuqaalkaa ka haysatid muuqaal khaldan haddaa ka haysatid dee jawaab khaldan baa siinaysaa waxaa caddayn u ah wadaadadu inaysan faham saxiixa oo dhammaystiran ka haysan muqadimada wadaadka horeeyey oo waxaan ka hadlaya masjidka abu hureyra muqadimada wadaadkii horeeyey oo soo bandhigay sida ay u shaqayso bahasha la yiraahdo forexku u shaqayso wax badan baa ka khaldanaa oo aan waxba ka jirin soo ma arkaysid waxaa kaloo jirta wadaadkii dambe oo xukunka dejinayay xukumadii uu xukumay mid ijaar ahayd faa'iidu ka dhigay oo meesha la kala kireysanayo qardiga ninka ku siiyey inaad haddana meeshiisii aad ku ganacsato oo aad markaa isaga ka kiraysato oo kiradii aad bixinaysa ay tahay kiro sicir suuqa ah oo ujratulmithli ah wuxuu ka dhigay ribuu ka dhigay masaladaasi sax maaha waynu sheegnay culimadii ka hadashayna waynu caddaynay qodobkii labaad oo ahaa commissionku riba maaha waa fee annaga bangiyadu way naga qaadaan accountkaa leh waxaa leh transactionskaa leh ATM markaa mashiinka la baxaysa lacag baa leh lacag baa nala saarsadaa $dhowr riba maaha waa fee baa la yidhaha lacagaha iyaga ah oo bankigu uu saa uga shaqaysto oo kale weeye lacagtaani lacag ka duwan maaha waxaan kaloo ka jawaabnay qabdigii inuu xaqiiqi uusan ahayn xukmi yahay xaqiiqadana aakhirka dambe haddii aad go-aansatid inaad ka baxdid ama lacag aa kala baxdid 10 kun baa kugu jirta waxaa go-aansatay inaad 5 la baxdid shantaadaas markaa oo 10 kun ba aad meesha ka samaysay oo aad ka faa'iiday kulligeedba faa'iidadii ahayd baad macdina la baxdo maalinta la baxaysid processkii ijraa'aadkii bay maraysaa laakiin aakhirka lacagtaadii waad soo qaadanaysaa bankiga aad ka soo qaadanaysaa gacantaada ay soo galaysaa qabdigii xaqiiqiga ahaa iyo kii xukmiga ahaaba way sugnaanayaan masalada ah arqaam faalsa ah weeye ciddii arrintaa qabtaa dee yay ka hadlin hadday arqaam faalsa tahay waa game ha ka sheekayn xukun sharciyana ha ku dhisin dhinaca ka mar soo ma arkaysid waxaan kaloo rabaa inaan ka digo dadka la leeyahay khubaraha la waraysanaya armaysan khubaro wada ahayn waa inay noqdaan anigu forex ma ka shaqaysan laakiin laba sifo oo aan kaga duwanahay wadaadadii soo faar hadlay intooda badan baan leeyahay marka koowaad 19 sano baan ku dhex jiray stooga iyo magaranaysaa online businesseska labo magister baan waxaan ku qaatay MBA in IT management oo aan bartay waxa la yiraahdo e-business oo in general aan bartay oo ku jirto lacagta brokerska iyo bangiyada iyo shirkadaha waaweyn iyo lacagaha advertisementiga la yiraahdo iyo sida magaranaysaa looga shaqaysiiyo business inta loo create gareeyo looga shaqaysiyo xayeysiis loo sameeyo iyo advertisement loo sameeyo marketing loo sameeyo oo kharashaad inta la geliyo alaab la soo gato faa'iido laga sameeyo bal iskaba dhaaf lacagtii bankigi bahashi ahayd waxaanu leenahay course marka la khatimayo iskuulka tartan lagu galo oo la dhaho strategic management IT management oo ah lacag shirkad inta lagu sameeyo run ah baa shirkadda adigu businesskeeda go-aan ka gaaraysaa waxaad go-aan ka gaaraysaa alaabta logisticada oo aad soo gadanayso
waxaad go-aan ka gaaraysaa kharashka kaaga baxaya stoorka iyo meesha aad ku samaynaysa warshada iyo masnaca aa leedahay kharash kaa gelaya waxaad go-aan ka gaaraysaa lacagta shaqaalaha aad siinaysid waxaad go-aan ka gaaraysaa marketing expenseska aad bixinaysid ma waxaa karaysanaysaa qof celebrity oo ku xayeysiiya waxaagii mise adaa iska xayeysiisanaya ma TV baad ka gadanaysaa xayeysiis ma radio baad ka iibsanaysaa yani baad go-aan ka gaaraysaa xayeysiiska kharash kaaga bixi lahaa waxaad go-aan ka gaaraysaa transportationka alaabtan meesha aad u suuq geynaysid transportation costigii baad go-aan ka gaaraysaa intaa markaa go-aan ka gaartid kumanaan qof oo kale oo arday ah baa kugula tartamaya iyaguna dhinaca kala jooga markaasaa tartankaas iyagu ofarka ay bixinayaan suuqu soo gelaya kaaguna waa soo gelaya qofka marka ugu fiican baa ofarkii la siinaya oo kow number 100 baan galay weligeed intii qof ku ganacsatay baan 100 soo galay 100kii ugu horeeyay baan may 47 baan galay first 100 top 100 baan 47 galay 46 qof baa iga horeeyay baa iga sareeyay weligeed ba dadkii kooraska qaatay marka aqoontii e-businesska iyo aqoontii stock tradingka iyo aqoontii magaranaysaa IT managementiga iyo sida internetka u shaqeeyo baa laga yaabaa wadaadada in qaar aan ka badiyo ama kaga fiicnahay waxaan kaloo ogahay oo aan aniguna sidoo kale waraystay kutubtii laga qoray oo casriga ahayd oo hadda kitaabkan aan idiin sheegay uu ka mid yahay Dr. Ali Al-Qari kitaabkiisa uu ka mid yahay kitaab 45 page ah weeye waxa weeye 45 page weeye 45 page akhri wax alla wixii la isku khilaafay oo saddexda qayb saddex mas'alo ku soo koobay laakiin wadaadada Soomaaliya jooga ay mid si kala qaybiyeen oo ay laba ka dhigeen oo laba ribo ay ka dhigeen saas uu uga jawaabay marka mas'alo dad aad u tiro badan ay ku nool yihiin waxaan kaloo arkay nin dhalinyaro ah oo wadaado mas'alada ka hadlay ka jawaabaya online-ka YouTube-ka masaa'ilkii marka aan dhageysto aan qariibsaday waxa kamid ah wadaad mas'alo uu ka hadlay oo yiri hadii dadku internetkan wada aadaan oo ay meel iska fariistaan oo ay halka lacag badan ka helaan yaa dalka ka shaqeynaya beeraha falaya waa su'aal aan sax ahayn su'aashaasi sax maaha dadku hadday shaqaysan karaan oo ay lacag heli karaan iyagoo aan magaalada aadin oo gurigooda aan ka bixin maxaa ka fiican soo waxbarashada iyo aqoontu fawaa'ida ay leeyihiin maaha soo ma ogid dad mutacalimiin oo taajiriina oo aan gurigoodaba ka bixin inay jiraan meel kalena aan ka shaqaysan internetka kaliya ka shaqaysta soo ma ogid ninka hadda adduunka ugu taajirsan ninka hadda aan sheegayay oo Amazon iska leh inuu basementigiisa ku bilaabay online businesska adduunkan hadda ugu taajirsan yahay muddo ka yar 20 sanana uu noqday ninka adduunka ugu taajirsan ugu lacagta badan 200 billion asadkiisa lacagtiisa ka badan ba waxay noqon kartaa liquidka laakiin asadkiisa intaas soo ma arkaysid soo wax fiican ma qofku intuu wax barto hadda nimanka shuyuukhda ahi maxamaal bay galaan ma beeray falaan wadaadadu iyagu laftigooda beer miyay falaan maxamaal bay galaan ma dhul bay xaaqaan ma waxbay raraan ma waxbay dajiyaan ma baabuur bay wadaan maya xamaal ma galaan iyo xoog maxay aqoontooda ku shaqaystaan meel bay fariistaan dadkay culumta diinta u akhriyaan wax baraan lacag baa lagu siiyaa in badan oo kamid ah oo mushaar iyo qaraamaad bay ku qaataan yani waa ilbaxnimo ninka professorka oo jaamacadda u shaqo tagaa 2 saacadood buu shaqeeyaa 2 hours asbuuc oo dhan 2 maalmood buu tagayaa min hal xiso dhigaya ama asbuuc oo dhan buu hal xiso dhigaya semesterku markuu dhamaadana imtixaanu maalin saxayaayo saacado dhowr saacadood gelinaya 40 arday 50 arday 100 arday lacag qabow oo sahlan oo 100,000 iyo ka badan 200,000 oo dollar bay qaataan soo markii gurigooda dhakhaatiir waxaa jirta guryahooda fadhido oo raajada akhriya ama intay akhriyaan tarjuma raajada loo soo diraa way akhriyaan way tarjumaan emailkaas ay diraan khalaas halkaas lacagtooda ku qaata soo wax fiican maaha dadku marka inay waja'alna ba'dakum li ba'din sukhriyan liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya ilaahi subhanahu wa ta'ala rafa'na ba'dakum fawqa ba'din liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriyan soo rahmatun min Allah ma soo dadku inay dhaqaale helaan oo si sahlan ku helaan oo ay iyagoo nasan oo gurigooda jooga ay lacag helaan soo wax sax maaha in la yiraahdo dadkii beerihii bay ka fariisanayaan sida darteed internetka laga xiro dad badan baa ku nool arintaas in la taxriimiyo fudayd baa ku jiray degdeg waxaan kaloo ka talinayaa dadka Soomaalida ah dhaqanka ay leeyahay waxa kamid ah qof baa laga yaabaa intuu ganacsi galo inuu ku khasaaro moos buu gatay mooskii buu qaaday meel hebluu geeyay waa laga gadan waayay waryaan moos loo dhawaan war mooska lagama ganacsan karo war khasaaro xoog la ku jirta arintaasina khalad weeye waxa kale oo mulaaxadaha wadaadada qaarkood iiga muuqatay
gaalaa waxaan ka dambayso oo maamulaysa oo lacagta qiimaheeda iyagaaba go-aan ka gaara waxba kama jiraan in allah huwa almusacir ilaahay baa sicirka gooya alqaabidu albaasid isaga ah yani hala joojiyo waxyaabaha aan ku dhisnayn objectiveka aan ahayn subjective waxa la yirahdaa jira dareenka adiga kugu jira dareenkaaga hayso caqligaagana hayso fahamkaaga iyo aragtidaadana hayso sharciga markaa ka hadlaysa sharcigu waa sharci ilaah baa iskale ilaah iyo rasuulkiisu waxaysan sharciyen sharci maaha ma arkaysaa dadka markaa ku ilzaamin ra'yigaaga ilaa internetkii yaan la tegin maxaa yeelay howlo kalaa dayacmaya sax maha qaarna internetku aadaya midda kale dadku ma wada guulaysanaya markay internetka tagaan ninkii ku dhacmaayo dhihin war forakisku waa tuugo war niman balaa baa jira way dhici kartaa kuwa tuugaa inaad akoon ka furatido adigu aadan aqoon meesha la maro iyo cidda la aado laakiin adiga cillad ku haysata weeye forakiska cillad haysata maaha forakiskii xaaraan weeye because anaa laygu dhacay oday haddii lagu dhacay nin tuugaa ku helay adiguna nin miskiina ahayd oo aan tuugada iska ilaalin karin meel la marana aan aqoon maalin walbaan suuqa aadnaa markaasaa waxaa dhici karta in lagu jeebsiibo haddaa suuqa xamar weyne tagtid oo hadda lagaa jeebsiibo ama suuqyadaas kale oo caalam ku yaalla intaad tagtay africa u badan tahay lagaa xado boorsadii aa wadatay lagaa xado ma waxaa leedahay suuqaas in la taga xaaraan weeye sax maaha arrintaas sax maaha marka waxaan kusoo koobayaa masaa'ilka laysku khilaafay oo midda koowaad oo ah lacagta marginka oo laysa siin ama leverageka la yirahdo laysa siinayo xaaraan weeye oo ribaa la socota waxba kama jiraan masaladaas wadaadadu inay fahmaan bay u baahan yihiin masalada labaad waa commission weeye waa ijaar ujradana way bannaan tahay qofkii deynka ku siiyey inaa ujro intaa kiraysatid isagii laftigiisa kuu shaqeeya ama wax ka gadatid way bannaan tahay maadaama laga ilaaliyo cilladii daahirka ahayd oo muxaabaadka ahayd labo ribad swaabka iskaba ilaali iskaba daaba oo kuwa free swaabka ah gala kuwa free swaabka ah firaaran min alkhawf min alkhilaaf yani saa ugaba baxdaan wadaadada warkooda iyo hadalkooda kuwa iskaba ilaaliya waana badan yihiin aad bay u badan yihiin kuwa forakis oo badan baa jira oo aan dadka iswaaba ka qaadin kuwa muslimiin ay sameeyeen baa jira kuwaas gala qodobka saddexaad oo ah qabdigii meesha kama muuqdo oo mulkigii qofka ma jiro iyadana waxba kama jiraan waa qof aan aqoon u lahayn akoonada internetka annaga bangiyada iyadu say u shaqeeyaan bay forakisna u shaqaysaa lacagta halkaa kuu taala adaa iskale markaa rabtaad la bixi kartaa markaa la baxdi brocess bay maraysaa brocesskaas waa dheeraanaya oo dhowr maalmood buu noqonayaa 5 maalmood buu noqonayaa 10 maalmood buu noqonayaa ijraa'aadkaas maa anzala allahu biha min sultaan wax mancinaya inay 5 maalmood kadib uu isiiyo lacagtaydii iyo inuu 10 maalmood kadib isiiyo lacagtaydii akoonka ii taallay waxay ku xiran tahay bolisigaas iyo anigu inaan ogolaado kuwa waxaa jira instantly ku siinaya markaa u tagto tiraahid akoonkayga waxaa iigu jirta 10,000 waxay ku qoran tahay marka hore oo ay isxayeysiinayaan bay ku qoran tahay xaysiiskooda servicekay bixiyaan instantly baan ku siinaynaa lacagta meesha kugu jirta kuwaa ku dhahaya adigu kuwaa dooro adaa yaqaan saa u dooranaysa laakiin haddii hataa aad aqbashid inay 7 beri kadib ku siiyaan famal maanic maxaa diiday waxaa diidaya maxay 7 beri kadib haddaan lacagtayda helayo oo 10,000 ay ahayd aan soo qaadanayo ايش المشكلة؟ maxay tahay mushkilada meesha taal waxay u baahan tahay cilmi bay u baahan tahay iyo internetka in la fahmo wadaadadu yay iskaga dhexdhicin sidii waagii telefoonada lasoo saaray ay u dhaheen telefoonku xaaraan weeye hadda telefoonay wada leeyihin soo maha internetna waa leeyihin waa la gaarayaa yaan lagu degdegin masaa'ilka casriga ah cusub ay ka mid tahay ijtihaad bay u khuduucdaa markay ugu yaraato waa masale khilaafiya hal dhinac uun dadka yaan laga tusin dhanka kalena tusa wallahu subxaana wa tacaala aclam ciddii ka shaqaysatana ilaahay ha u barakeeyo oo ma garanaysaa yaan la ceebayn oo dadkii iyagoo xamaalanayo shaqaysanayo cilmigooda iyo aqoonta ilaahay geliyey iyo kartida iyo awoodda ay u heleen soomaaliya imisaa qof baa internet access u leh waa yartahay aad bay u yartahay inta u leh marka yaan laga mancin oo laga xarimin ha loo daayo والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دي سؤال قبطان إيسو قرأ أن بوبسيه 5 minutes ما آخرين مسجية ده because ما بآخرية كرو هذا أنا آخرية دقيقة سوق بيها هذا سؤال قبطان
waxaan ka hadlaynay mas'alo diinaan ka hadlaynay kuwa siyaasad iyo qashin ka hadlayaan ujeedaa dadka qaar baa akhasunaas ah meel alla meeshay tagaan edab darre iyo cay iyo wasakhnimo la jooga yacni waxaan la yaabay dadka qaar waxba isku falayn baa jira qashina wasakh baa jirta adduunkii marka waxyaabaha uu internetku keenay bay ka mid tahay ciyaal suuqnimadii dad badan iyo dhaqan xumadii iyo akhlaaq xumadii dad baa guryaba kusoo korin oo gidaarada ku koray qaar baa yacni weligood aan madrasa la geyn oo dugsi la geyn oo aan la barin eedaabta iyo akhlaaqda kuwaasaas buu fashilay internetku waxyaabuu fashilay ka mid tahay maalin walba mid baa intuu kusoo galo iska kacaaya waxa aad u geysatayna lama arko iyo wax idinka dhexeeya kumaba yaqaanba nin baa hadda madaxweynaha waddanka caayaya soomaaliya oo wuxuu leeyahay xaarmaajo waa qof akhlaaq xun aan dhaqan lahayn oo aan waxba isku falayn qof aan respect isaguna isu hayn cid kalena aanu hayn weye marka koowaad midda labaad wuxuu leeyahay anigu wuxuu leeyahay farmaajo u shaqeeyaa farmaajo maba aqaaniba dowladda soomaaliyan uma shaqeeyo shuqulna kuma lihi 10 jeeraana idiin sheegay inaanan anigu soomaaliyaba tegin 23 sano baa iigu dambeysay 23 sano ka hor baa soomaaliya iigu dambeysay see ugu shaqeeya qofaadan aqoon marka inaad ku aflagaadootid oo halkaa ku caydid midda kale wadaadadiiba hadday kaa baxsan layihiin see u noolaanaysaa ilaahay waa ku abuurtay adaa is yaqaan meesha aadaysa su-aalahan rabay inaan ka jawaabo ninkaas waa distract gareeyey shirkadan soomaaliya ka ganacsada adiga war ma u haysaa sidee ku shaqeeyaan maya soomaaliya anigu war kama hayo mana ka hadlayo waxaan ka hadlayaa forex baan ka hadlayaa xalaal miyaa forex lacagta laga helaa nacam waxaan ka jawaabayaba intaas eed ku noqo oo dhegeyso casharka o dhan dhegeyso horay u saa culimada fadwada bixisay ma la xiriiri kartaa si aad u saxdo may anigu maba aqaaniba wadaadada telefoonadooda laakiin haddii laygu soo xiro waan u sharaxi lahaa in badan oo aan ka ogahay ciddii rabta inay wax ka ogaato ila soo xiriir som forex team ninkaa qofkaa la xiriir ifraax cawil geelle gabadha halala xiriiro qofkii raba inuu ka ogaado soomaaliya forexkeeda qofkii su-aasha ay weydiinayay gabadhaa la xiriir iswaab ma iska saari karaa markii aan faa'iidada la baxo oo aan iska tuuro ma shaqaynaysaa iswaabka adaa lagaa qaadaya adigu ma qaadanaysid iyagaa kaa qaadayo kaa qaadanay lakiin shirkada waxaa jira aan iswaab lahayn kuwa u wareeg anigu se iswaabka laftigiisa ma aaminsan inay ribo tahay waxaan aaminsanahay ijaar inay tahay meesha laga ijaaranayo oo maalin dheeraada aad sii isticmaashay leverage ku ma lacag ba mise waa awood midku doona ha ahaado labada jeerba waa bannaan yahay waxayse u badan tahay culimadu ay leeyihiin waa awood haddiise uu xataa lacag yahay there's no ribo meesha lagaa kiraynayo kirada aad bixinaysa kiradii suuqa oo kaley la mid tahay intaasaan ku joojinaynaa insha allah wixii su-aalaha waa iisoo qori kartaan gadaal baan kasoo jawaabaya iyadoo qoraala sal allah wasalam calaa sayidina maxamed wala alihi wasaxbi wasalam